شاتي يا كورنا أود لها شاتي جدود شاتي حريمته وتقانا سوسنا معها ها مركب فاروق قاضي USC horey noogu soo duushay haddana waa USC waxaana ognahay abaabulka dagaalkan aadan madoobe xasan eelay cabdiqaadir jaamac saadaad caliyow ilyaas rag digli marifle ah weliba marifle u badan UNC yaa kusoo duushay tanaba hadda waxaan dhihi karnaa dowlad maahe waa UNC hore UNC gudbay guriga deganaa ugu taga aada meeshaan yaa ku siiyood ka heshay gabar hooyada talyaani u saarnaan jiraan ka gato yiri aadana wax shaqaynaya ma ahe gurihii daaroodka in la boobo maa noo go-aamiseen dadku amiseen noo sheega ana laftamidaan qabsana guri malihi kii asoo nool aan dalka ka eriyey oo Lagos ku baqtiyey ku yiri faham warka haye maxamed siyaad bare ها سياسة سبب إذا بدو بسوق باريس halkan la isugu yimid maxaan idhaahdaa xukunka miya qabkii meesha ka baxay awal maxaa ku wada joogteen آذن حقيقيا horta sheekh هاي sheekh meesha ma yaal taliyihii asluubta laga qaaday waxaa loo dhiibay sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud maxamed sheekh xasan xaamud markii la fiiriyo taariikhdiisa iyo taada markii la isla akhriyo markuu isaga wax noqdo adigu waa daciifaysa marka adigu wax noqotana waa daciifay maxaa idinka dhaxay laakiin nin xaafid ah oo quraanka bartay oo macallin quraan ahaayo halganka RRA markuu galay dugsi quraan soo xiray ummadan aad arkaysid oo ummadda fidnaynays intooda badan quraanka yaqaanaan kuma dhaqmaan kan waaba zaa'id gurigan kale waa dhis fargaas ah ma fahamtaad fargaaska ma taqaan adiga fargaaska ma fahmaysaa maxaad ii weydiisay bacdi marka haddii 30 sano ka hor ay diid idinku haystay in siyaasaddii maxamed siyaad barre ay gobolka ku soo noqonayso maanta hadalhaynta ugu badan ee la idinla xiriirinayo weliba adiga qoyskaaga waxaa waaye wasiir gaashaandhiga laga soo dhigay dowladda Cabdullaahi Yuusuf isagana wasiirka cadaaladda laga soo dhigay bal fidnadan fiiri wax ka fujiya wasiirka difaaca wasiirka cadaaladda guri isku qabsaday yaa guriga isku qabsaday nag baa laga kari waayay isaga laftiisa muxuu ahaa aan bacaytamo muxuu ahaa sida eelay oo kale u ah maanta hadalhaynta ugu badan ee la idinla xiriirinayo weliba adiga qoyskaaga waxaa waaye in markii taandhada la tago madaxweyne mareexaan aad u hiilisaan oo waxyaabaha siciidani oo hadda idinka soo horjeeday keenay inuu idin mucaarado beenna ma sheegaya jabadaas dagaalanto oo marifle ugu horeysay inay qori qaataan oo dagaalamaan ay wax la diriraan anaa aasaas eelay waayo horta dadka aad tirinaysa markii 2 nin laga reebo hal nin markii laga reebo inta kale waa eelay miyaanay marif ahayn hadalkayga ma fahmi eelayna weligiiba digili marifle ku fikrad ma noqon geedaan ka nimid guryaha naga iyo dadka naga cid aan ka dhalalnaaba jirtaba reerkii anaga aqalka naga yaaba jiraba meeshaan ugu tagnay nin daahir bakiin leeyahay oo habar gidir oo Saleebaan oo Reebaydhaba aha maqaayad ku lahaa oo ganacsi ku lahaa dadka waaweyn lagu tiriyo iyo anaga naqaado noo geeyay inaan ognahayna inaad boo noo lug qabat ogow waa fahamtaan u maahan intaas suu kay dambaysa aniga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسود وهذا برنامج كيني قاد فدي قيدك دودا يفكردها هل كي دودو كدشان فكردونا كو كوران برنامج كواحد سي وذي جرو داونيسان سومالي ستريم يا كارتوك وحان إذن لسعودسيني أنيقو عبد الكريم علي كار يا أنيقو عبد النور محمد أحمد داودي المانتا برنامج كواحا مرتين وهو سريقاس مهد عبد الرحمن آذن جنرال برنامج كوسو دوو aad baan kugu soo dhaweynaynaa soo dhawow waa dhawahay muddo 10 maalmood ka yar ka hor waxaad ahayd taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana magaalada adoo Turkiga ku maqan aad magaalada Muqdisho ugu soo noqotay si aad qayb ugu noqoto xal u helista khilaafaadkii xisbiga JSP dhexdiisa ahaa oo gudoomiyihiisa xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Cabdi Casiis Laftagar inaad dhex gasho waxay ku dhamaatay inaad xabsi gasho
bal sidaa turkiga uga timid xamarna u timid iyo waxa aad damacsanayd iyo sida wax noqdeen wax nooga sheeg. بسم الله الرحمن الرحيم horta waa salaamantihiin geed fadhi barnaamijka la yidhaha aada u salaamantihiin salaan kadib waa ay jirtaa isbitaalan waxaan u aaday turki muddo yar markaan joogay 5 beri 6 beri dee u badato waa 5 beri madaxweynaha i soo wacay wuxuu i su'aalay inteed joogtaa markaas oo loo sheegay inaan baydhabo jiro okay waxaan idhi istanbuulan jooga aydaaba iga sii fiican u yidhi waxaad yeeshaa istanbuul wiilkaagii ku sug markuu yimaadana isa soo raaca soo wad xamar imaado wiilkaaga markuu kule markaa wuxuu ka wadaa cabdicasiis cabdicasiis ka wada nairobina uusan aadin nairobi cadowgeyga badan baa joogo ma rabi inuu aado hadduu nairobi aado waa kala tagnay anigaasi waa arkaynaa bes maalmo ka bacdi horta ugu soo noqnoqdaa ninkii ma aragtay ma arkin kuwa kalea iwa weydiiyo ma arkin okay maalin dambe ugu soo noqday wuxuu yidhi ninkii ma haysaa markaasaa idhi baydhabo joogaa ninkii baydhabo joogaa markaasa imow yidhi marka waa u imid maalintii markaan diyaaradda ka degay waan baxay waa u tegay madaxweynaha isagoo fadhiya xafiiskii ciidamo badan oo la abaabulayana guutadii madaxtooyada iyo ciidan la abaabulayana ilaa iridii laga soo galay ilaa madaxtooyada dhexdeedii ciidamadu safayi bas meeshaan ugu tegay anaaba su-aal weydiiyey waxaan idhi madaxweyne soo adiga dalka madaxweyne kama ahayn ciidamadan aad abaabulayso koonfur galbeed ku wajahaysa maxay yihiin mase kula fiicanta koonfur galbeed ha burburinayna ka jooji baan idhi cabdicasiis leh haddii aad rabtid anaa kuu keenayo ama kula soo hadasheynayo ogow waxba kama qaban kartid u dad haddee go-aan gaaray oo duulaan oo baabuurtiiba ay fayl ku jirto kaasi waa fahmi kartaan micnaheeda waayahaan idhi waxba kama qaban kartid iska tag u yidhi hadda ka hor aan wax ka qabtay waad ogeydi haddana wax waa ka qaban karaay arrintan madaxweyne ka fiirso may iska bax buu yidhi iska bax waa soo tegey meeshii aan ka shaqaynayaan imid inaan 2 beri joogaan u malaynaa maalintii kale wuu isoo wacay wuxuu yidhi gurigaagaa ku xiranta meelna ha aadin ciidanka guriga kula joogo oo asluubta ana saar ciidan kalaa meesha imaanaya intaa markuu yidhi banaankan u soo baxay dhallinyaradii baan idhi bax meel hebel taga sheekadii on hayabo niman haram cadaha la keenay ninkaas shaalla dhaxa wato mooshin la yidhaah ciidankii iriday degeen niman dee dhallinyaro askaray ahaayeen waan fahmi karay mobeelkana ha laga qaado yidhi aniga marka taasaan amarkaasaan qabnaa idheen waa idin siinaya hadduuba idin anfacay marka nimankii xogaa waa iga xishoodeen mobeel igama qaadin anna maba ku hadlayninba haddaan mobeel ku hadlo mid kalean isticmaalayo taas macnaheeda saas u ahaa talagalka wuxuu ahaa inaanan koonfur galbeed tegin micna iyagaa waxay isu sheegeen ninkaas meeluu maraba haddaan la xirin baydhabuu tegaa mooto qaadaya iyo meelu maraba marka baydhabo hadduu tagana abaabul badan buu gelayaa naga xir ra'yigan kolba wixii waxaas watay buu ka yimid aragtidayda waa ra'yi aadan madoobe waa ra'yi jaamac
ورأيي أحسن إلي markii aan fasiro saas uu ila noqon karaa waxa ay ka yimid buu asna igula kacay macna waka maxay waxa horta iigu daran oo rabay inaad si fiican bal noogu noqoto marka madaxweynuhu ku yiri waad xiran tahay ma la doodayo ma weydiisay waxa aad ku xiran tahay iyo sharciga uu kugu xirayo ma la doodin maada weydiiyey meesha sharci baa lagama rabay waad fahmi kartaa maxkamad baa iska leh xariga madaxweynaha waa xiranta qofka inuu yidhaa xogaa meel tilmaamaysa ma caddayn kari marka maba la doodinba wixii dhan baaba fahamsana lama doodin dowladda kaa hub badan oo kaa dhaqaale badan oo kaa ciidan badanba waddada waa mari weyday marka tuhunka ah janaraal mahad waddadu ku tahriibi kara xaggee ka timid dadku ma og tahay dad wax kale ka shaqeynayaa jira marka mootooyinkan laba lugoodleyda iyo waxaasaa qof dadka yaa la iska maraa waddada shabaabna isma arkaysaan ayagaa ku qarinaya qaab saasaa dad la yeelaa jira tiibay marka cabsideeda qabeen ana mootaad sheegiye haddii wax kasta la sheego mooto ma raaceenba adigu waddada aad marta goormaan kugu dambeysay waddadaasaa taas aan maro waxaa iigu dambeysay 10 sano ka hor 2006 agaasaan maray waa dowladdii cabdulaahi yuusuf miyaa qiyaasta saasaan isleeyay waqtigaasaa iigu dambeysay waddadaas aan maro maalintii iigu dambeysay weliba waa ku dhaawacmay oo jidka waa laigu galay shabaabaa igu galay waa ku dhaawacmay daraawalkii gaariga ii wadayna waa lagaga dilay taas waa oga marka waddadan way xirnayd shabaab baa degay waxaa laga waardiyeynayay in ay ummadda marto dowladda inay marto shacabku waa iska maraya waddada ma ogtahay ma ka go'nayn dadka shacabka baabuurta waa socdeen laakiin wixii dowlad u shaqaynayaa cirka u furnaa anna kuwaasaan ku jiray sooma marka ma runtood baa jenaraale ma damacsanayd inaad si aad ku tagtaba bay dhaba tagto oo way kaa hordegeen mise mabaad soconay iyagunbaa iska kaamaagay maya ayagaa iska kaymaagay markee aniga waddada shabaabaan ku oga maalintii aan maray markii iigu dambeysay waa ku dhaawacmay qof dadna waa la iiga dilay shabaabna calaaqaad ma lihin aniga weligayna lama yeelan dadka ay wacwacaan oo yaa waa ku daynaynaa iyo saas noo yeel iyo aniga maba ku jiro weligay sheekadaas igumayna dayinba hadda ma lagu soo masaafuriyey oo dalka ka baxa lagu yiri adaa iska uga soo tegay masaafuris turkiya ahayd weliba inaan aado ma sidaa intaan jenaraal u sheegin waa xiran tahay baa kuugu dambeysay iyo wiilal haram cadow ku yimid oo lagu yiri telefoonka ka qaada laakiin kaa xishooday soo maaha markan dambe oo aad soo bixitaankaagu bal siduu u dhacay nooga sheekee soo bixitaankayga ragaa ka shaqeeyey niman ganacsataa yaa ra'yigaas ka shaqeeyeen marka iyagii uu wax ka soo ogolaaday oo intay soo baxeen ila joogo iyo hasna haddana isoo wacay suuya muxuu yiri marka wixii saacadan laga bilaabo waa fasaxan tahay haddaad turki rabtid turki aad haddaad kenya rabtid kenya aad horey u soco macnaha iska joog ma ku jirin yaa kelmadda ama turki aad ama kenya aad bay nimankiina waa ila joogaan soo ma ogid markaasaan idhi kenyaan aadaya ma weydiisay inaad joogi karto ma weydiinin kelmaddaas markaa idhi nairobi baan aadaya kenya wuxuu igu yidhi cabdicasiis u sheeg dadkaas nairobi dhooban oo maaragtay mucaaradka uusan ku biirin macnaha ninkuu kursiga ka soo qaadu leeyahay uusan ku biirin ha sheekada saas ha iska kaysugo ha iska kaysugo ma weydiiso maxaa lagu sugaa iyo maxaa waa la hadlayoo waxaan idhi aniga horta nairobi baan aadi cabdicasiisna hadduu gelayo hadduu kaareeyo taas asay u taallaa oo aniga tay ma u qaadanayo
midda kale waxaad ogaataa anaga boombaad noo lagu qabatay inaan ognahayna inaad boon noo lagu qabatay ogow waa fahamtaan u malay intaas isugu kay dambaysa aniga isaga intaa markaa tiri muxuu yiri maya shub buu iga yiri suuq ma oran yuuq ma dhihin wuu igu qasday weliba xogaa qosol ah yuu ku daray maca salaama hadda adiga meesha waad ka soo tagtay cabdicasiisna waa kaa soo horreeyey maxaad qorsheynaysaa maxaa ka shaqaynaysaa dad badan baa naga soo horreeyey oo annaga leh ma ahe koonfur galbeed ma ahe oo carradaan jooga soo maaha innagana ayagaan ka mid noqon doonaa kuwii ka celinay kuwa lahaa ku beerinayna haa yaad galaysaa dantaaba keeni meel iskama joogi karo qofka ya qofka meel iskama joogi karo ya marka wixii aan noqonnaba horta aan nasanno kabacdi aan tashanno ya aad iyo aad saasay ilata koonfur galbeed laba madaxweynea soo martay shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynihii koowaad ee maamulkan cusub markii la dhisay ahaa iyo cabdicasiis xilligii hore waxaad ka ahayd taliyaha booliiska ee gobolka ee koonfur galbeed markii dambena taliyaha asluubtaad noqotay xildhibaan baad noqotay haddana asluubtaad kusoo laabatay waxa baydhabo maanta ka socda xageed is leedahay qiyaas ahaan adigoo khibradaada ciidan iyo midaada waaya aragnimo adeegsanaya xagee ku socotaa koonfur galbeed koonfur galbeed maanta waxay taagan tahay meel laga soo kaxeeyey 20 sano ka hor meel laga soo waday oo baaba ah ayay maanta taaganta 20 sano ka bacdi dib bay u noqonaysaa waa la islaynayaa qabiil qabiil baa la isu laynayaa sidii lagu kala celin lahaana way adagta awliya kala hortaagnaa ya marka hore maamulkaana ka hortaagnaa maamulka cusub ee la samayn doono miyaanu kala hor istaagi karin ma kala hor istaagi karaan maba kala hor istaagi karaba haddii maamul cusub la sameeyo ma kala hor istaagi karaan cid war ka yeelaysaaba cariiri ah ya marka dadkaana dad la qabsaday waaye dad maamul loo samaynayo oo sharciyan sida dastuurka sheegaya loo samaynayo maaha kow gobolka shabeellada hoose waxaa lagu talagalay inay banaadir ku daraan taas horta ogow mar hadday taas u dhacdo waxaa soo haray bay iyo bakool maamul goboleed xitaa uma ogolaanayaan ya dowlad maamul goboleeda uma ogolaanayo gobol bay noqonaysaa gobol kaley noqonaysaa waa talada aadan madoobe wuxuu islahaa baydhabaad tegaysaa adaa qabsanaysidoo madax baad ka noqonaysaa kursigaasaad tegaysaa amar ilaahi ma ogi in uu arrintaas uu helayo ilamaa markee nin colaad abuuray waaye aadan markii ay soo galeen magaalada meel guri ah oo asiga uu leeyahay iyo hay-ad deganayd hay-addaas dad badanaa ka shaqeynaya 2 nin oo magaca xariinka ah ku jirtay labadiiba waa la qabtay markiiba waa la dilay guriga asigaa hortiisa inta la dhigaa la gubay haddana 2 nin oo aad isku reer tihiin on isku reerna waa la gubay haddana colaadda ayadaa qabiilka waa u taaganta may xariin labada nin magaalada kama joogin oo xariin badan baa joogtee labada nin maxaa lagu maagay maxayse galabsadeen amay geysteen may waxay geysteen ma jirto shaqaalay ahayn hayadda u shaqeeyo gurigii bayba ku sugnaayeen hayadda gurigana aadan madoobaa leh ha gurigay ku sugnaayeen aadan madoobaa lahaa guriga marka ma aadan madoobe intaanu iman baa la dilay mise markuu yimid kadib intuusan imaan baaba la dilay okay warka waa kaase ma ogta marka colaad badan bay raxweyn isu qabtay waa la kala celinaya sharciga lagu kala celinaya ninkii nin dila in isla maalintaasba la dilo
waxaa nabadgelyada lagu ahaa taasay tii meesha waa ka baxday ummadaana dhibaato badan bay soo martay ninba waa wax ka qaba ninbaa wax ka qaba oo wax ka tirsanaya marka ma fududa say nabadgelyada hadda ku saxanto wax fudud maaha balse annaga waxaan go'aansanay ciidamadanadii annagaan iska lahayn ka magac ahaan magaalada ma joogaan doorkeeday u baxeen waxaan go'aansanay dadkan inaan indhaha ka fiirino annaga aanan dhibaato u geysanin baydhabo inaba ha yaraata inaan dhibaato u geysanin bal dadkaan aan indhaha ka fiirino waxbaan xukumayaa iyo waxbaan saan yeelayaa leh bal inaan aragno aysan ugu eer sheegan tas go'aanay noo taha qabiilka taasuu go'aansaday marka tasbaabkeeda waa saas marka doorka xaggee ka joogaan hadda meel mucayanood ku ogtiin miyaa jira mise waa kala baaheen maya dhulka waa weyn yahay maogta waa deegaankanagii meelo badan bay kala jiraan hal meel alleyba ma joogaan sheekh aadanaad soo hadal qaaday aadan wuxuu ahaa nin tanii markuu baarlamaanka yimid cabdicasiis aad isu fahmeen wada shaqaynayeen arrimaha doorashooyinka ka wada shaqeeyeen nabadeynta south west ka wada shaqeeyeen markuu muddoxileedka ka dhacay cabdicasiis dadkii bay dhaba yimid oo nabadeynteeda iyo kala xalinteeda ka shaqeeyuu ahaa ma isqoomid horaa idiin dhexaysa mise waa wax hadda ka dhashay un xilligan kala guurka wax horena waa jireen haddeerna way sii kacday ow dastuurkan horta wuxuu khaas ku yahay oo dastuurkii sharciga ahaa burburiyey xasan sheekh iyo aadan madoobey khaas ku tahay marka kii dastuurka horta baabkiisa waa saas mid kale markaan u noqdo aniga waxaan hubaa mar horena dadaan ku eri dowladda xasan sheekh meesha ay ku dhammaanayso waa meeluu aadan madoobe ogi usan xasan sheekh ogeyn aadan madoobe ururna wuu baabi'iyey dowladna wuu baabi'iyey tanaa dowlad tanaa laba u ah dowladdii cabdilaahi yuusuf aadan madoobey eed yaa see u eeday bal ummadda u sheeg way badanta ummadda way og yihiin aadan madoobe guddoomiye baarlamaan u ah haye cabdullaahina madaxweyne u ah nur caddaa la keenay oo ra-iisul wasaare ah dardaaran badanna qaba waa joognay waa shaqaynayna ma ogta dardaaran badan buu qabay nur cadda alla irxam waa dhintay hadda aakharu jira qolyahan oo ree adeer hawiyo way la soo ballameen waxaa li duqaan adaa ku face isku askarna ahaa jirteene na dhaafi dowladdiisa ma rabna saasay arrinta ku dhacday marka ra-iisul wasaarihii la keenay baa ka soo horjeestay dowladdii aadan madoobena lacagaa la siiyey wixii aniga aan idhaahaa sharci ee dhaha la yidhi tii buu yidhi maxaa yaa dowladdaa la dhisayaa madaxweynihii aana joogo nur cadday waxaa dhisaya aadan madoobe yaa oo taas saasay ku dhacday maxaa kuu soo haray midda jabhadda tii ururka aadan madoobe guddoomiye ku-xigeen buu ahaa koobaad xaabsadaa ku xigay labadooda shaatiyaa guddoomiye ahaa anaa afkayga ku weydiiyey ururka canshuuru qaadi jiray canshuur yaa la qaadi jiray baydhabo meelo kaloo kastama iska furnaana waaba jirtay sida diinsoor oo kale iyo waa jirtay marka aadamadoobe iyo xaabsada waxay qori jire lacagta bangigaa la dhigi jiray bangigu waa buuxay kastoo beesa soomaali ahayd bangiga baydhabo ilkahaas waay canshuurtaasa lagu aruuriyaa marka waxaa xaq u leh inuu bixiyo shaati way ku qornayd heshiiskii iyo dowladnimadii
shaati yaa ku qornaa awoodda lahaa. shaati guduud shaati xarinta u taqaana soo sidaa maaha haa marka faruhu ka qaaday labadan nin marka lacag bay moodayaan waxa kan asna danka ma lahayn laakiin in lacagta la dhiga bangiga ayuu ka shaqeyn jiray amarkiisa iyo ku bixi jirtay labadan kuma baxdo amarkooday ku baxdaa asna amarkiisaa lagu dhigaa meesha su-aalan weydiiyey aakharu jiraayo waxaan idhi lacagtan aad awoodda u leedahay adiga ee nimankan aad aruursanayaan maxaad noogu dilaysaa lacagta ninkaan lacagtaanaa nagula dilaya wuxuu yidhi nimankan 2 ninoo reer baadiye ah waxaanay lacag moodaya hadda haddaan ka joojiye waaba isdiriraynaaba yah saas darteed ha gurteena iska dhaaf anaa su-aalay wuxuu iigu jawaabay intaas wayna soo baxday dowladaa la dhisay asiga madaxweyne looga dhigay waxaa u soo baxday marka waxaa ku qornaa dastuurkii la sameeyey awoodda lacag bixinta madaxweynaha leh waxaa u soo baxday nimankii inayna boono qori karinoo meeshii lacag ka qaadan karin waa kastaa umalayna waa reebaadiinimadii uu sheegayaa soo baxday tiyaa bannaanka timid okay ilaahay amarkii saas markay dhacday oo dowladdii la dhisay koonfur galbeed shaatina looga dhigay madaxweyne mar koobaad warqaddii koobaad oo uu qoro oo eber saas ahayd yaa iba weydiideen waa ka hor yimaadeen waxaana dabada kaga jiray amxaarada dowladdan in dhisay diidaysay shaatina waa ka diiday waa la dhisay marka amxaaradii yaa dabada uga jirta oo leh diido oo waxaad yeeshaan soo madaxweyne mauna noqon guddoomiya ururka kugu wareejiyey sheekh aadanow sidii bay shaati ula tageen wuu ka diiday ma wareejinayo guddoomiyaha ururka xaaladaha horta say u dhaceen waa saas ardisaba waa la geeyey labadoodii warqad bay qoreen oo xabashada ka qortay waxaan rabnaa ayaa la yidhi urur baashi dowladdan inaan burburino koonfur galbeed annaga ma ogolin wax badanna waa inla soo qabanno waa ogtihiin waxaan rabnaa inaad burburisaan waa dowladdii shalay ay dhisanya waa tay shalay dhiseen ayagaa dhisay inaad burburisaan sheekadaasay soo ogolaadeen yaa ku daba jira sheekada marka inaan inta dowlad ka hergelin yaa ku daba jira dadku may wada ogo laakiin ani waa oga noo sheeg dhibaatada taagan amxaarada keligii ma ah waxaa kaloo ku jira puntland way fahamtaa umaleen cabdulaahi doolow ima waa la yidhi boosaasuu ka tegey doolow uu tegey wuxuu la kulmay gabre ma maalintii aad nooga sheekeynayso aad lahayd diyaarad la luntay baa ma aha soo maalin kale taas ma aha haye tu kale waay wuxuu tegey doolow ima waa la yidhi si amxaarada yaa wax isku ogaa meeshay ku shireen amxaarka lacagu siiyey dowladda koonfur galbeed in la burburiyo labadan nin oo ogolna loo adeegsado haddana xoogaa kaloo lacaga ayaa ayaga la siiyey waa xaabsadii aadan madoob maxaar waa la soo ballantay waa lasii qaaday weliba doolo waa laga qaaday arsaba waa la geeyey saad ku dumin kartaana la yidhi imtixaanay ka qaaday waxay ku hadleen annaga 24 saaca ma ku burburinaynaa dowladda dhanba shaatin ama asigoo nool ama asoo meydaan kuu keenayna yaa
waa yimaadeen xabadda waa bilaabatay wax kala dhiciyana lama helin oo dadkii deegaanka u dhashay ah lama helin 70 nabadoon iyo samadoon iyo wax isugu jiro iyo shiriyey bakiin meesha la yidhaha shaati wuxuu yidhi nimanku warqaday soo qoray warqadoodii waata maxaaraasay u dirtayaa tee arisaba uga qortay asigay u soo dirtay wuu haysta marka maxaar horta waa taas dagaalka waa cabdullaahi yuusufna waa ku jiraad leedahay Ah. marka ujeedadiisana waan idiin sheegaa haddana taas saasay u dhacday waa isdarinay 2 garabaa noqon jiidaan ku jiidaya maraan magaalada ka saarnay iyo maray naga saaraan taas saasay u dhacday waa sheeka soomaalidii ee urur kooxyadii wixii ay qabeen weeye cabdullaahi maxay dantiisa ahayd tii imbagaatiyaa dantiisa ahayd way fahamteena u malayna imbagaati wax dowlad goboleed oo madaxweyne sheeganaya cabdullaahi ka tegay sooma ha puntland keliya ka tagtay tan hadday jiri lahayd oo meesha tegi lahayd cabdullaahi lama doorteen ummaddu waxay dooran lahayd shaati ka dagaal ooga ma ahayn difaac leh ahaa asiga yaa nin lagu soo duulo isdifaacay unbuu ahaa asiga maana dad kale kuma duulin taas horta micnaheeda waa saas cabdullaahi tiina wuu helay tiin si madaxweyne ahaana loo maamuusay meelaa la dejiyey dadka kale laguma dhex darin wabilaahi towfiiq taas sidaasay ahayd ujeedadiisana taasay ahayd waana ogaa aniga okay. intaan shaati la ridin waxaa ka horreeyey 95 meelaha Dr. Xasey maamul 6 gobolaha laga dhisay 95 95 yaa ka shaqeeyay taas burburinteeda say ku kala dhantaalanta sida tan oo kale la ahayd UNC ay ku soo duushay tanaba hadda waxaan dhihi karnaa dowlad ma ahe waa UNC waa markii labaad ay nagu soo duulayso tanna saas unbaa fakriga aan qabaa waa saas aduu xaggee joogtay xilligaa baydhaban jooga markii SNA meesha timid ay qabsatay adigu xilligaas waxaad la shaqaynaysay Dr. Xasey ma la shaqaynay maamulkaas yar unbaa la sameeyey ciidanna ma lahayn madaxtooyada iska degeen wax qaabaysan oo fiican ma ahayn marka maamulkaasa laakiin la sameeyey ay diidna maamulkaasu diidayey saan unbuu noogu soo duulay waa garataan u malay 3 habeen asigoona haystaanba baadiye u baxay intaadan baadiye u bixin mar waxaa jirtay aad si gaara noogu sheekeynayso aad ka sheekaysay in isagoo meesha airportka hadda ku yaalla jooga haa subaxdii uu qabsaday ha nooga sheekay bal arrintaa meeshaan ugu wixii tag idin dhex maray ha su-aalaha aan weydiinay taasay ahayd Haye, intaan idiin sheegay haye. waxaan doonaynaa dadku inay ummad wax ka barato oo la ogaaday waxaan su-aalaho weydiinay aniga iyo 2 nin oo kalaan ahayn Haye, nimankii kale magacyadooda ma xusuusan kartaa haa aakhiray jiraan labaduba allah yarxama meeshaan ugu tagnay nin daahir bakiin la yidhaah oo habar gadir oo saleebaan oo reer baydhabo ahaa maqaayid ku lahaa oo ganacsi ku lahaa dadka waaweyn lagu tiriyey iyo annagana qaadoo noo geeyey aydid buu idin geeyey Haye. cid walba ma tegi karin Mm. marka subaxnimadkiiba waa u tagnay su-aasha aan weydiinay waxay ahayd baydhabo colaad inkama dhexayn adiga iyo baydhabo wax colaada inkama dhexaynin sidaan ogna haddana madaxweynaan ahaa tiri dowladdu soomaali dowlad bay dhisatay sal ballaaran anayna dooratay yiri saasuu yidhi no socdaalkaygana dib baan ka sheekaysan doonaa waa kormeer balada u fiirsa Haye. waa kormeer ma xumaanidi dad madaxweynena sheeganaysa baydhaban aan colaadin ka dhaxayn 9 saac habeenimo adoo gaadiid tignika awadat maxaad magaaladan u soo gashay waxyaabuu ku hadhadlay
waxyaabo wuxuu nagu yidhi muxuu yidhi ninkii asoo nool aan dalka ka eriyey oo Lagos ku baktiyey ku yidhi faham warka haye maxamed siyaad bare haa siyaasaddiisii baa baydhabo dib usoo kubaaraysa marka inaan siyaasaddii celiyaan rabaa meesheedii ku celiy mid kale maxaa la dhahaye UNC meeshaanay xafiis ku leedahay xafiisay ku lahayd xafiiska dadka deegaankan degan qolo u helisay iyo kuwo ka heeliyey waay anna qoladii u heelisayna inaan u heeliyo qodobkaas waad fahmi kartaan u malaynaa aad iyo aad kuwii ka heeliyeyna inaan ka heeliyo yaanu imadir waa qaybidii macni meesha wax kale kuma jiraan qaybiyo xukuntii weeye macnaheeda taasna waana imid kuwa yidhi qowmiyad baan nahay digli marif oo meeshaan maamulaan ka samaynay inaan ka eriyo beentooda aan sheego soomaalida isku qowmiyad waaye qowmiyad gaara ma jirto oon anigu maamul xaqa u sameeyey ina waa u imid yidhi intaan haddaan hadda kaa siiyo waxa kale adaaba fahmi kartid waa in kusoo duulo waa idin qabsanayaan le macnaheedu waa saas dhaqaale raadisna wuu ahaa oo uu dadka siisto ciidamadiisi iyo wixiisi xaggee ka raadinaya hay-adihii deganaa meesha aaway kulli waa xirxiran yihiin lacagay isku furteen markii dambe yaa hay-adihii caddaanka waa xirxiran yihiin waa sharciyadda laga bartay macalinkaas yaa in la isku duulo macalinkaasaa laga bartay dalka asaa u bilaabay marka haddii 30 sano ka hor ay diid idinku haystay in siyaasaddii maxamed siyaad bare ay gobolka kusoo noqonayso maanta hadalhaynta ugu badan ee idinla xiriirinayo weliba adiga qoyskaaga waxaa waaye in markii taandhada la tago madaxweyne mareexaan aad u helisaan oo waxyaabaha siciidani oo hadda idinka soo horjeeday keenay inuu idin mucaarado idinka daba shaqeeyo oo meesha inaad ka baxdaan ka shaqeeyo waxaa ka mid ah maadaama uu madaxweyne rabo inaad dhinac u janjeertaan meesha waxa ku jiraan kuu sheegi siciidanina siduu u fakeray ma ahayse kalaa jirta asiga shalay madaxweyne mareexaanaha joogay wuu mucaaraday wuxuu ka dheefayna ma aqaan wuxuu ka dheefay waa isla ognahan u malaynaa wuxuu ka dheefay ma arkin qayle iyo dhibaato iyo buuq iyo mucaarad iyo isagoo laftiisaba hadda dagaal ku socdo taasuu ka dheefay taas waa midaas maxaa kuu soo horay annaga ninkaas waxaan u arkaynin dhaqaalo kulama shaqaynaynin isaga nama dhalin waxaan kula shaqaynaynay koonfur galbeed waxaan u arkaynay in ay meesha ka soo muuqato ninkan taladiisa dowladnimadii soomaaliya oo qabkii soomaalida inuu soo celiyey dadnimadii soomaalida ay soo noqotay uu raadinayay dowlad caga dhigatay waddankan taasaa nooga muuqato on ku dooranayni horta midtaas way horreysay 4 sano xasan adiga iyo wiilkaagu aad ag taagnaydeen oo wixii aad ogeyd oo heshiisa uu sameeyo aad la saxiixdeen dabcan adiguna waxbaad si uun uga ogeyd oo ugu dambeyn dastuurkii la mariyey markii halkan la isugu yimid maxaan idhaahdaa xukunka miya qabkii meesha ka baxay awal maxaa ku wada joogteen annaga dastuurka wax kama burburin waa kastaan malen wuuba ka hadlay madaxweynihii uu ka hadlay cabdicasiis laakiin markii dee ugu dambeysoo la kala tegay unbuu ka hadlay markii hore brosees ku socday oo axmed ninka la yidhahdo siciid cararay oo ugu dambeyn haddana axmed intuu adkaysan waa isna cararay imisuu la sii joogay ilaa iyo haddeeruu la joogay intaa marka qabkan aad sheegaysa xaguu ku maqnaa meesha qama jirin lafahaaga badbaadiyaa ku jirtay axmed madoobe iyo dani iyo annaga isku mid maahin waa sax waxay ummaddu ka dhexayso oon wax ku lehenay ay haystaan annaga ma haysano sanadanadan annagana iska guranayn yaa heshiis waxaan ku ahayn inaad lafiin nacaysataan inaan sanooyinkan ku daristaa iska guranno way kasta inaan umalayn aad iyo aad hadda warkayga aada u fahan si wanaagsan axmed madoobe
meesha uu ku degdegayo deked buu haystaa, deked ummaddaa leh maahan asiga inuu leeyahy. sicidanina waa la mid, wax ummadeed ay haystaanoo ayaga maanta khaas u haysto. marka annagii ayaga isku waddo ma mari karno, waa kastaanu malay. taasi haddii aan isfahanay sidaas meel iska dhig, ma jirin jacayl kale iyo dowladnimo soo muuqato oo aan ku raacnaa ninku ma jirin. hal kalena waa jirtay, halka kaloo jiri maxay soomaalidu sideeda maanta dowladay rabtaa, sideedaba soomaalida maanta dowladay rabtaa, ha xumaataa fiicnaad ya taasna ummadda waa la ilaalinaya. waxaan hadday gacanta ka baxaan isdilkii iyo dhibaatadii baa imaanaya. dowladaa noo joogtadaasaa lagu samraayay magaran, annagana intii baan ka mid ahay ya annagana intii baan ka mid ahay. maadaama aad tiri soomaalidu dowlad bay u baahan tahay, dowladnimadana bilowgeeda iyo asaaskeeduba ay nabadgelyadu ay kaalin weyn ku leedahay. hadda markii xasan iska kaa soo fasaxay ku yiri or iska tag, inaad baydhabo tagto oo dadkii baydhabo waa deegaankaaga oo magaaladaad ka soo jeedo, dadka meesha degan oo aad in yar ka hor lahayd colaad badan oo kala duwan bay isku qabaanna waa dadkaagii. intaad u tagto ood dhex fadhiisato, cabdicasiis wuu tegey, hadda maamul cusub baa la sameynayaa, dadku ha heshiiyo, halkaana aan marno. ilaan oday kaa weynoo hadda raxan weyn isku hadlaynaysaa ma jire, maxaa u tegi weyse? waa su-aal aada u fiican. horta inaan tagaba yaa kuu ogol, ogolaashaa ka horeysa. waa fahamtaan maa mootana ma raaci karo inaan taganaba leima ogolo. garoonka wuxuu iigu furnaa Nairobi iyo Turki ya aad iyo aad labadaas yaa garoonka amarkay qabaan inaan aadi karo, taan raba inaan aadi karo. taas inta iga dhig. hadda Soomaaliba habku maqashee ma dalbanaysaa inaad baydhabo tagto oo madaxweyne xasan baa kaa hortaagan iyo nimanka meesha mas-uulka uga ah si aad nabadgelyada iyo isku soo dhawaanshaha iyo dib u heshiisiinta uga shaqayso? waxba lagama qaban karo haddaan taga xitaa wax kama qaban karno. waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo. waxaad tiri USC horey noogu soo duushay, haddana waa USC. waxaana ognahay abaabulka dagaalkan aadan madoobe, xasan eelay, cabdiqaadir jaamac, saadaad caliyow, ilyaas, rag digli marifle ah, weliba marifle u badan yaa horboodayo hawshaan ka shaqeeyo oo xitaa buurha kale ilaa baydhabo lugeynaya. marifle ma aha, maxay soo ahayn? waxbaa isaga kaa qaldane. marifle ma aha, aqoon yaraa jirta. eelay waayo horta dadka aad tirinaysa markii 2 nin laga reebo. 1 nin markii laga reebo inta kale waa eelay. eelay miyaanay marif ahayn? hadalkayga ma fahmi. eelayna weligiiba digili marifle ku fikrad ma noqon. maalinta hore oo UNC aan ugu soo duushay aan ku leeyahay eelaya waday sooma saas muu ogta asaa waday. madaxweyne ku-xigeenka caydiid baa ahaa. haa waa manuur cali bar. haddana yaa waay waa kii uu dhalay oo magaca lahaa saadaadna ah. sheekada waa ulta sidii marka meeshaad ku aragta eelay raxan weyn ma ah, halgankeedii iyo xoreynteedii midna shuqul kuma leh. laakiin xasan eelay waa yantaar. xasan eelay yantaar ma aha, ma aha xasan eelay yantaar. xasan eelay waa eelay, waa fahamtaa umalayna. deegaanka gomaray yantaareed meel la yidhaaho waaye deegaankiisa dadka degan yantaar waa u dhasheenoo waa yihiin, waa dad yar oo tuulo yar. gomaray yantaaraa lalahaa isaga, laakiin yantaartaba kuma jiro. maba ku jiraba meesha lay degan yahay ma ahane. yantaar waa dad nasab oo la ogyahay soo maa ya. marka eli asba waa ogyahay, waa jareer, waa kastaan u male yaa ninku doorana iska sheegan karo. ma fahamta eli wakaa
saadaan markaan kaaga soo qaado saadaad saadaad markaan kaaga soo qaado waa eeley oo manuur caliw barraa dhalay manuur caliw barre isaga laftiisu muxuu ahaa aan bacaytamo muxuu ahaa sida eeley oo kale u ah yaa marka laakiin idinka laftiina gadaad ka timaadeena la leeyahay annaga ma diidan adi hay idinka ma diidanidin annaga ma diidanine geedaan ka nimid guryaha annaga iyo dadka annaga cidda aan ka dhalalnaaba jirtaba reerkii annaga aqalka annaga yaaba jiraba gedada weli taasu geda ceeb ma ah meel walbaan ka imaan karna maxaa buurakaba ceeb ka dhigay marka gada haddaanay ceeb ahayn eelaynimada maxaa ceeb ka dhigay iyo buurakaba maya waxaa ceeb ka dhigaya dhulkan waa loo dagaalamo dagaal badan baa la maray burburkii kow dadkaanu dad dagaal ma ahayn mashaakil badan kow axmed cumar jaf ogaadeenaana qabsan jabhadaa lagu aasaasay oo dagaalanta jabhadda ayada ah beenna ma sheegaya jabhaddaas dagaalanto oo marifle ugu horreysay inay qori qaataan oo dagaalamaan ee wax la diriraan anaa aasaasay adigan ma hada aniga ma hadaa aasaasay hay bal nooga sheekay taariikhdeeda iyo waqtigaad aasaastay iyo ragga aad ku aasaastay axmed cumar jees etoobiya laga soo qaybiyey 3 nin ayagoo ah mangiste dowladdiisii in dowladda soomaaliya la burburiyo kow maxamed faarax aydiid gobollada dhaxaa loo diray axmed cumar jees qaybtan koonfur galbeedaa loo soo diray cabdiraxmaan tuurno waxaa loo diray meeshii la yidhaah waqooyi dowladdan etoobiya burburisay runtii markaan ka hadlo waaya cumar jees waa meeshii loo soo diray oo qabtay waana qabsaday aniga soo 3 beri joogo yan meel baadiya u baxay cumar jees baadiyaan aaday ciidan aruurisaan galay ciidan aruuris yaan galay aniga markaas waxaan u fahamsanaa haddee nin ka yimid qabri jiqood oo inta qabsaday dhul doon waay yaa fikradda aan qabay taasay ahayd wayna ahaydoo saxbay ahayd jabadaan ku aasaasnay waa la diriray 8 maalmood madaafiicdii iyo wixii bay naga qabsadeen 8 maalmood markuu dagaalka socday arrintan aasaaskeedii abuurkeeda waxaa ila ogaa shaati u ahaa anay shaati aan ahayn baadii ubax ciidan oo aruuri 50 qof oo qoriiley haddaa heshay waa ku imaanaya iisoo sheeg ka badan 270 marka cilad yarna waa jirtay waa tanna la dhahay geday ka yimaadeen waaba ku cusbaaba qabiilka marka meeshii ma kala garanayn ya hariinkii waay moogtaadey aada uma kala garanayn marka hubbaan ka arooriyey dadaan ka arooriyey niman odayaalaan helay 170 qoriyaan helay waa u sheegay isagiiaan akhbaar u diray 170 aan hayaa ii imow galabkaas ay soo baxayaan maalintii ka horreysay waa ii imaan doonaan shaati baadiya iigu imaan doonaan isaga iyo rag kale yaa nin cali marguus yiraah rabsho ka kiciyey magaalada nin bay dileen laysaanta ninkii ogaadeenka markay dileen ayagana waa la galay waxbaa laga dedilay ogaadeen magaaladu ku kala jeeriyay kulli waa bilalaqaystay dadkii ayagoo yaacayay ii yimaadeen yaa aasaaskii horta saasuu ahaa 8 maalmood markuu dagaalka socday madaafiic ay la dhacayaan magaalada altileerigii oo dhan ay haystaan annagana kaarabiinka iyo qoriga ah ka hay waxaasaan wadanaa shaatiyaa ii yeeray meel magaalada dhexdeeda guri ah ku jiro waa u tegay wuxuu ii yidhi
niyow nin warqad qaada oo caawa lugeeya oo meesha la yidhaha buur taga subaxi baabuur ka raaca buur inta baabuur ma leh ka raaca oo nin xamar jooga warqadaas iigu geey ma ii heli kartaa nin baan u keenay marka ninkii warqadii buu qaaday waagaba wuxuu ugu bariyey buur shaati muxuu u yeertay marka warqada loo geynayaa midaan fawziye aabaheed maxamed sheekh fawziye maxamed sheekh xildhibaan yaa waxaa la dhisay ay dhisteen manifesto saa ogtihiin manifesta la dhisay waa qaybtii caligeedii cali mahdi waaye manifestadaas wasiir gaashaandhig maxamed sheekha ka ah shaati ninkuu warqadda u qorayna waa maxamed sheekh warqadda waxaa ku qoran nimankii magaalada altaleerigii iyo hubkii iyo wixii o dhan bay naga haystaan annaga ma haysana awooddaas beledka 8 maalmood iyo dagaalka socdaa waxyaalo badanna waa gaareen dowladda manifest hana soo xoojiso intaana ku qornay bas maalintii bay warqaddu tagtay habeenkii naga maqnaayeen subaxin ayagoo weerarahana soo galay way fahamtaa umale Amar Jees saasuu ku baxay Amar Jees manifesta idin xoojisay manifestaan xoojisay saasuu ku baxay okay kaas wejigo ah wejigo ayuu ah waxaa jiray oo kale qolihii raab tegay oo soo rogaal celiyey ina socodkoo waasna SNF kuwaas socodkoo yaa waxaasoo dhan waa lala dagaalamay maxamed faaraxa yimid waa lala dagaalamay UNC 3 sano iyo baray nagu qaadatay yaa markii dambana amxaara la soo xoojisay yaa Tigray la soo xoojisay waxaan uga jeedaa marka eelay intaba kama qayb galin maba ku jirinba yaa hal qof oo ayaga kama qayb gelin tii Cumar Jees aysan ka qayb gelin tii kale oo raab tagay soo noqday aysan ka qayb gelin tii Maxamed Faarax aysan ka qayb gelin waa ciidiide kama aysan qayb gelin ciididka laftiisa ayagoo wada imaadeen oo la jirano yaa ayagoo hor socdayin haddana sidii lay u hor socdaa kuwo kale oo halgan oo la galayna lagama sugaayo oo waddankan ma laga sugaayo taas baabkeedu waa saas oka aadan madoobe aan rabaa inaan ku noqdo aadan madoobe maadaama uu shaati guduudna la dagaalamay idinkan hadda in meesha laydinka bixiyo oo kaalin weyn ku lahaa odaynimo maxay tahay ismaandhaafka idinka aadan madoobe intaasoo sano jiitamaaya ee xalis mila ee aad marba kuraas u kala ridanaysaan aadan madoobe horta nimaan baranin ninkii bartay anigu ahaaye cabdicasiisa iga diiday maahana golahaba ma soo galeen markii horeba golihii baarlamaanka ma soo galeen ee cabdicasiisa iga diiday kelmaduna maxay ahayd war odayaashii aaraareeday oo ninkan ka midka ah shaati waa dhintay xabsada waa dhintay kana haray waagii siyaasadda ninkaana iga saaray uuna idhihine faraha ka qaad buu yiri waa ku darayaa anigu waan aqaanay aadan marka goorma baratay aadan inta 3 sano iyo barkii kala jirnay annaga aan door ku wada jirnay yaa on dagaalamaynay waa isla jirin aadan xaqiiqiyan horta sheekh alla dhahay sheekh meesha ma yaallo laakiin nin xaafid ahoo qur-aanka bartay oo macallin qur-aan ahaayo halganka RRA markuu galaya dugsi qur-aan soo xiray ummaddan aad arkaysid oo ummadda fidnaynaysa intooda badan qur-aanka yaqaanaan kuma dhaqmaan kan waaba zaa'id
kan hadda meeqa gooran kuu sheegaya hadda fiiri baarlamaankiyaa lagu daray guddoomiyaa loo doortay waa guddoomiyihii baarlamaanka ya baarlamaankii kala eriyey baarlamaanka hadduu taga intay dowladnimada taalla waa isweydiinaynaa hadduu baarlamaankii kala tago dowladnimo ma jirto waxa un loo baxay waa qabiil markuu baarlamaankii kala eriyey yaa waxaa gashay rajo ah yaa koonfur galbeedna la nacabyah warniyo meeshaan amaad boos kale ka raadisaa oo xasan sheekh ku xirataa baydhabo lagula qabtaa aad xafiiska horey ka fariisataa anaa madaxweyne goboleed ah ma dhahdaa rajadaanaa ku jirto xasanna si fiican buuba yeelay hadda marka aqoontiisa dib noogu celi aqoontaad u leedahay aadan sheekh waaye qur-aanku yaqaanaa cilmigu yaqaanaa oo sheekh mayaa la soo digi hadda lahaa ya sheekh meesha mayaa la soo digi lahaa haddii sheekhnimadii la ilaaliy in la ilaaliyo sooma rabto waa meeshaas aadan wakaa berigii dagaalka aad ku wada jirteen ka war soo dadkii aarareeda ka midka ahaa oo koonfur galbeed difaaceeda ka qaatay muu ahayn haa hay markaa cabdicasiis ku leeyahay aan iska dayno odayaashiibuu ka mid ahaay maxaad adigu ku haysato ood u rabtay in ninka odayga oo aarare ka tirsanaan jiray in siyaasadda saan inuu soo wado keeni karaan ogaa sida hadda taalla ya inay ka imaanaysaan ogaa aadan saaxiib male qadiyad male aadan waa hunguri magacii loo bixiya aad ma ka garan kartaa soo ansax ma aha waa aadan ansax saasaad ku garan kartaa buriskiisuu wataa waa ansaxuu ku leeyay wixiina maba loo keeninba maba soo gaarin be muxuu ansixiya ya aadan baabkiisa wakaa wax wadaniyad la yidhaah iyo umadnimo wax la yidhaah shuqulku ma laha waqtigii t f g da wuxuu noqday wasiirka cadaaladda taas xal ma ahayna ma ogtahay xal bay ahayd xil ma ahayd ha markuu guddoomiyaha baarlamaanka waayo shariif xasan uu ka adkaaday wasiirka cadaaladda laga dhigay dowladdaas dhanba xilalkii lasoo magacaabay kulligeed xal bay ahayd xil ma ahayn tuti 80 xildhibaana la sameeyey soomaaliya loo qoray 80 wasiir 80 wasiir intay tagayaan amna eelayaaba wasiir ahayd ya amnada wayd ha yaaba wasiir laga soo dhigay wasiirka haweenka waxa laga soo dhigay adiga wasiir magac wasiir ay wadat habartan kala lamid ahayd fawziya kulli wasiiro marka tiradu waa 80 waxaa la tira koobay hogaamiye kooxeedyadii si buuqa u yaraado u dhammaado micnuhu saas unbuu ahaa ya waase lagu soo meelgaarayo maxay ahayd 4.5 kan waxyaabay soo sameeyeen dastuur baa la keenay ilaa iyo xasan sheekhaa la soo gaarsiiyey hadda ya marka wixii lasoo maray ka mid ta wixii lasoo maray ayay ka mid taha asluubtii taliyihii asluubtii laga qaaday waxaa loo dhiibay sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud maxamed sheekh xasan xaamud markii la fiiriyo taariikhdiisa iyo taada markii la isla akhriyo markuu isaga wax noqdo adigu waa daciifaysa markaad adigu wax noqotona waa daciifahay maxaa idinka dhexeeyay jaraal xaamud anigoo qaybta booliiska joogo iyo taliya ciidan noqday booliiska qaybta booliiska ee koonfur galbeed aad joogta horba waa isdirin maxaa isku maagteen waxaa jirtay wax oo uusan taliye ku kacin buu igula kacay waa kastaanu male niman dhibow oo koonfur galbeed loo qoray oo booliis ah uu raashin siiyey oo kambaniga gacanta ku hay kambani ingiriis ah yaa 200 loo tababaraya 600 ay ahayd labadii ugu horreysay maalintii ay baxdo la xiraayay iyuu yimid 2 neef oo yar yar oo geel uu keenay uu leeyahay ciidankan u qal runtii markaan ka hadla aniga waa iska hilmaamay fiidkii ku jenaraal oo ibraahim macalin kutub la yidhaaho iyo aniga oo
division ka dhex fadhin iyo isoo wacay may waxaa sameeyey kii geela hayay baa isoo wacay warniyow aniga geeliyaan meeshii la fadhiya war waa ku hilmaamee kaxay stationka ku xirxir saldhig geeli saldhiggaa la geeyey waan fikero waxaana siri nimankan maalin walba hilibka loo qalay hilib uma baahnee daraawiishta aan mishaarka qaadan oo magaalada ila haysa oo aan qornay ii saldhig amaad u qalataa iska dhaaftaaba kuwaan sidii baan yeelay adiga labadii neef saasa daraawiishta iyo waxaan kala siiyey saldhig habeenkii dambuu isoo wacay wuxuu yidhi mahad mi ahaa geelaygi ii gud meeshii aan sii ku iri iige iina gud geelaygi warfiida waay geela aniga ma qalanin ciidankan adiga miyaadan xukumin oo taliyo u ahayn dhibowgan hilib uma baahna hilibka u haystaan raashinkooda waxaa lagu soo karayaa kenya marka kuwaan miyaadan xukumin maya aniga war kale ma rabi geeli maaragtay ii gud adu meeshaasaan isku khilaafay wixii aan idhi hadda ma sheegayo asaaba og dagaalaan dhex maray adugu 2 biloodaan iscelcelinayn waa ku bedelo u yidhi bedelkii aan badiiday shariif xasan oo yaana soo dhex galgalay adiga sidaydii baa ana la iigu daayey geelina waan guday ma ogtahay kuwa janan oo booliiska ay dhabar jabiyeen mahad waa gardaran tahay ninkan geeliisa u gad iyo waxaan marka khilaafka geela weli socda horta meeshaan ka bilowna waxaa kale oo jira marka runta markaan ka hadalno nin dhaqanka ragga wax ka fahamsan ma ah dhaqanka naaguhu yaqaanaa naagaa heestaasi waxaasay rabaan ma ogtahay ya asna waaba heesaaba marka kuwaas heshiisayey haddaanba sheegayba hoolka waad isiyaanay laakiin asluub kale wax uma qabanaysid horta asluubtaasaan ku keenay jenaraal mahadow ciidanka asluubta waxaa lagu sheegaa ciidanka afraad ee qaranka xabsigaa dhexe magaalada muqdisho iyo midka kale lambar kilomitr 7 ku yaala mooyaane meel kalena ma joogaan saad ku ogaatay adigaan ba ku su-aalay dee xaggee kale joogaan ha i weydiye intee kale joogaan idhe intee kale joogaan waa kuu sheegaa aye ciidanka labadan meelood asigoo joogaan u imid hadda soo noqodkaygii dambe macna aye markii horena intaasaan ugu imid aye tirada ciidanka oo aan u imid asluubta aaday u yarayd 114 askariyaa la igu wareejiyey 114 askariyaa la igu wareejiyey hadda waa 5,000 oo askari hadda saacaddan aan kula joogo 5,000 oo askari waay oo da-yar ah kunkii horoon meesha ugu imid 300 oo askari yaa da-yar ka ahayd odayaalay ahayn inta kale odayaalay ahayn waa kuwa shub lahayd miya waa markaas shub aan lahaa ciidan yar qoray ciidan yar yaraan qoray macna odayaashii howlgabay qaar sii noqdeen oo qaar aan bishaqayn karin iyo ku wixii harayna weli sidii ay meeshii u joogaan tariibkaa hore oo aan shub lahaa 500 ay ahayd maalinkaas waxaan qoray ya 500 ay ahayd isla farmaajo joogaan haddana 5 kale ku daray kunkaasaan ku kordhiyey inta kale oo 5,000 ka dhiman markii labadan laga reebo inta kale soo noqodkaan dambaan qoray gobollada dalkaana ka qoray haddana gaalkacyo yaa xabsi laga dhisay oo deganta asluub
ciidanan ka qoray dugsina waa ka dhigay askariga xamar lagu tababarayo waan ka diiday gaalkacyo iyo baydhabaan 2 dugsi ka dhigay ciidanka meeshaasaan geeyaa laguna tababaraa dhalinyaro tababaran oo ciidan ah ka soo baxay mar ma aha 2 ma aha 3 ma aha 4 ma aha taas waa midaas meelaha ay kala joogaan aan kuu sheega gaalkacyay degan yihiin cadaaday degan yihiin dhusmareebay degan yihiin intaba xabsiyaan ka waday aan dhisaayo micna labadaba waa cadaada iyo dhusmareeb wax yaraa ka dhiman xabsiyadu way dhammaanayaan hal shilin cid igu siisayna ma jirin maskaxiyan aan u isticmaalin waa kastaan u malayna baydhabo xabsi baa ka jiri markii hore ay joogeen mid kalaa laga dhisay dugsina waa ka dhigay ciidan baa jooga waa fahamtaan u malay mar haddaan gaalkacyo geeyey oon cadaado geeyey oon dhusmareeb geeyey oon laasacaano hadda markii la qabtay ciidankii joogay aan qalabeeyey ciidanka ma meeshii uu taagay oo xudur uu joogo oo waajid joogo yaa ma meeshii uu taagay mise hore u socday oo intaasoo magaalo haddaad geysay maxaa lagugu xantaa ninkii janaraal mahad ahaa meesha xariin buu kasoo buuxiyey haa way jirtaa laakiin waa hariinkee dheh hariinka aan soo qoray waa soomaali wey soomaalida xariin noqotay ya soomaalida xariin ha soomaali wey soomaaliday marka hariin u arkaan waa kasta soo maa wax hariin ah oo aan keenay sideedaba maalintii asluub la keenay oon odayaashaan ugu imid yaa waxaan qoray 500 oo nin 500 oo nin farmaajaan ugu tagay waxaan idhi nimankan ii ogolow inaan qorto nimanku waa noocee 300 oo nin yaa oo jareer ah waay aan askar ahayn xaquuqna lahayn lagu shaqaysto taalooyinkii oo dhan nimankii dhisay waay taalooyinkii sida sayidka axmed gurey xawtaako sidoodii wax ku soo celiyo dhisayo waay asluubtaa dhistaa la leeyahy magacii asluubtaa leh mushaar ma qaataan xaquuqna mala galabkii xitaa markay tegayaan xoogaa yar lama siiyo waa jareer ciidan shaqeeyana meesha kama muuqdo odayaashaan waxaan codsaday marka farmaaje yaa waxaan idhi farmaaje nimankan waa saano waa niman lagu shaqaysto ya waxaan kaa rabaa ii ogolow inaan qorto ayadoo lagu daraayo 200 oo askari oo tababaran oon baydhabo uga soo tagoon dhibow ka saaray inaan soo qaato keeno ayagaas iyo 3 markii la isku daro waa 5 kuwa aan baydhabo uga soo tagay hareen maaha ciidamo aan tababaray ahaayeen oo 700 ku dhawaada tababaran waan tababaray waa ii joogeen waa kastaan u malayn gobolkan ku xukumay inay raashin siiyaan ciidankii asiga ahaa 100 askari iyo farmaajo baabuur soo saar diyaarad soo saar 100 askariya la soo qaaday nimankii madaxtooye la keenay miyaysan ahayn oo xero goordan inta tababar kale lagu sii celiyey baasaboorada loo sameeyey dibadda loo qaada layin aan la qaadin oo madaxtooyada ka shaqaynaya ahay waa 100 haram cad meeshii laga aasaasay waay haddana ciidanka asiga ah waa meeshii haram cad laga aasaasay anna 200 aan ka soo qaato asluubta ku daray hariinna ma ahe waa reer baydhabo waa kastaan u malayna tan waa saan markaan ka gudbo aniga markii la keenay oo 1 asluub iigu horreysay oon koonfur galbeed ka soo tegay ciidankaas aan kuu sheegayo oo 20 nin ahaan la imid 20koodii qori wadatoo staff ah nimanka staffka oo ila shaqaynay ahay wax yaraa qabiil kale ku jiray kulli 20kaas hariinaya hariinka lagu sheegayo horta waa inta tan ka soo gudub
waa laga yaabaa dadaa ku jiray allah igu og inaanan kala kasayn dadaa ku jiray 200 aan soo qaadnay har in kolley kama marnayn waxbaa soo geli karaa xaggaydi inta kale ciidamadaasaan ka qoray waxaan kuu sheegaa asluub markaan imid intay ka koobnayd qabiil ahaana haddana kuu sheegaa hay maantana soomaaliya oo dhanaa laga dhex heli karaa xawaadle 1 dabaro 2 ya geelidlo oo dabaraha qoray macni hal qof oo marifla ah maba ku jirinba sidiisaba ya xawaadle maxaa keenay aas-aaskii waayo nin xawaadlaha meesha xukumay waa kastaa ma male dabaraan waxaa keenaya xasan xuseen sheekh xuseenaa keenay ah asaa keenay oo 2 goor ku noqday geelidlahana isku degaan waayo asigaa waday macnaha hal qof oo raxaweyn digil ma ogi qof kale kumaba jirinba dhowr sarkaal waa laga heli karay ya ciidankaas sidaas u ahaa marka kelmaddan ay leeyihiin saasay been ku tahay ani qabiil shaqaday ma ahayn maanta asluubaa la weydiin karaa waa kastaana male qabiil nin qabiil ka shaqeeyeyna qaran ma xukumo fikriga aan qabaatana yaa qabiil haddii la rabo maantuu yimid waaba joogaa hawey ninkii aaw hadda meesha loo dhiibay shaqo kale muu leeyahy jibriil cabdirashiid no taliyihii asluubta aaw ha ha janar xaamud aha qaylo ku dhuftay wuxuu yidhi furmaha ciidanka jira furunta ilaa taliska guud meelahan wixii jilibla oo ku jira hala ii keeno hadda waa saas labteed asig kama ceeb sheegayo macnaha tanuu ku dhaqmay staafkaygii 20 ah hal nin oo jiliblaha ku jiray wax u sheegay shaakiina wuu watay ya kuwii 20 ah waayd aniga hadda asluub baa staaf ii ahayd 20kii hore aan kuu sheegaya asluub bay ka mid noqdeen ragaa ka dadallacay kulli waxaan u dhiibay xabsiyada nimanka haya waay xabsiyada nimanka haya waay markaan odayaashii ka quustay xabsiga taleefona ku jiro daroogaa la geliyeyda lagu hayaa nimanka hirarka staafkayga ahaan jiraan geeyey dhallinyaraan abuuray oo asluuba maanta shaqaysa oon mar 2-3 dallacsiiyey furuntiina jira xaaji cali 500 askari oo da'yar aha joogta hortay nin askari ahaa ma jirin xabsiyada ku ekaaya ciidanka haddaan kuu sheegayo furunta dagaalka jooga waa 500 oo askari aan ku iri aniga hortay nin askari ahaa darajo iskaba dhaafay ma jirin waa fahamtay hadda maada fahmay waa fahmay okay waxaan rabaa dib inaan kuugu celiyo aadan madoobe waxaa jira eedayma loo haysto guri bay dhabo ku yaalla adiga wax ma ka ogeyd aniga aadan u og dadkaana dhan anaa kaga macrifo badan bal guriga taariikhdiisa nooga sheeg waan kaga sheekeynaa haye gurigan waxaa la dhisay dhammaadkii 75 bilowgii 76 dhismihiisaba markaas ah ninkii guriga dhistay waa lagu dacweeyey yaa haye taliye qayb buu ahaa qaybta militariga 60aad yuu taliye ka ahaa korneyl u ahaa guriga markii uu dhistay nin maxamuud diini cigaal la yidhaaho dhintay oo sarkaal ah markaasna askari ahaa uu dhowr jeer garaado ka reereebay yaa dacweeyey mariixaanu ahaa wuu dacweeyey guriguu dhistay meel footo uu furtay oo wax lagu sawiro waxyaabaha noocaan ah footahana asiga ma lahayna nin ay isku reer yihiin oo indha guduud la yidhaahaa iska laha waxaa kaloo lagu dacweeyey bahal oo xaskul la yidhaahaa jirta xaskul soomaalida xaskulay adi ma taqaan xaskul waan qaana waa geed oo dhulka ka soo bax oo xarko noqonayo xarko xigna waa la yidhahdaa xaskulna waa la yidhahdaa wakaa xarku ka ganacsadaana waa lagu dacweeyey bal hadda u fiirisay soomaalida u kala fogta
meeshaan la yidhaah doynoonay aniga markaas dhibowan ku jira dhibow anoo ku jiro dhismaha guriga ka hor oo doynoonay aan dhibow ku galay kowdii ku jira yaa taliyaha qaybta subax kormeer noo soo aaday dhambalka karowrooga ninkii yaqaanaa yaqaan waa meel yaroo saan u jeexan oo la yar qodayn oo waddada taliyihii noo soo socda xeradii usoo socda jidka wuxuu kula kulmay niman eyle la yidhaah oo kuwa shabaqa dhigta ha ugaarsada ugaarsadoo 8 nin ah oo nin walba shabaqiisii wato waddada goynayuu la kulmay wuu u yeeroo kaalaybi way iswaraysteen xariggaan maa ku shaqaysataan haa sagaaraa ku gaadaysaan haa wixii baa la tusay xariggii arkay wuxuu yidhi qandaraasaan idin siinaa adinka qandaraasaan idin siinaa anna waxbaan in la qabanaa haye okay qandaraas baan idin siin anna waxbaan idinla qaban haa haye anna waxbaan in la qabanaa haye ma ogoshihi haye waa ogolna wuxuu yidhi dhibowgaan aan ku daraa askari aan idiin qora 8diinaba askartaana aan ku daraa warka ma fahmi si fiican adinkuna xarkahaanaad ii soo haysaan xarigga waa la soo hamooho haa kuwaanaad ii soo haysaan waxa lagu soo hayeen anaa keena meeshaan hadda aad joogtaana 8diina 8 guri oo mundul ahaan inkaga dhisaa geedahan adinkaa soo guray xaskush mundul oo la dego guri mundulka laga sameeyo. yaan inkaga dhisaya maxaad u warwareegaysaan cawskii iyo wixii anaa keenaya iyo siligii iyo adinkuna dhistaa soo guranaysaan halkaanaan ba idin dejinaya xeraday ku dhowdaa meesha xeradaana waa idin geynaya meel kale laidin bedelay qandaraaska aan dhiibayo waa kana siday ku heshiiyeen 8dii buu soo kaxay xeradu ku soo shubay aduu markaa xerada ku jirto an dhibo waan ku jiraa xeradan ma jooga haye wixii ka noolaanba hadda saaxiibna waa kastaan ma haye wuu keenay baabuur maasa haye iyo nin abuukar sankuus la yidhaaho markaas isbitoore ah reegada ah iyo baabuur maasa u dhiibay lacagna waa siiyey xaskushaan waxay ka baxdaa zoona ceel waaq ya marka waa la fufujinayaa waa la samaynayaa ayadii oo cad oo in la soo halay dhiman ceel waaqaa lagu diyaarinaya baadiyaheeda garsaal iyo buusaar dhul la yidhaha ka baxda aada uga baxda marka abuukar sankuusuu u dhiibay lacagna siiyey baabuurkaana wado xaskushaas keen waa la keenaa nimankiyaa loo rogaa way sameeyaan wuu keenaa waa u rogaa guryihiina wuu u dhisay meeshii meel tuulo ah yay noqotay ayay noqotay okay eylana mushaarkii askariga la siiyayo halkaasay ka baxday bahashi lagu dacweynayo xaskushaan kuu sheegaa marka waa geedaasoo ceel waaq laga keeno maxay anfacdaa oska rabaa i weydii marka haye ya haye waxay anfacdaa xarkahaas dharkan maaragtay harqaanada lagu jarjaro ha yaa la soo aruurinaya waxa la jarjaray xargi waa lagu xirxiraa ya waa fahamtaan u malay haye maxaa lagu samayn markaa waxaa iskale oo la siinaa lagu cabirayaa madfaca waxaa lagu cabirayaa baabuurka weyn waxaa lagu cabirayaa kan yar tatig militariya lahaa nin fakerayo waay dagaaladii markii ay dhaceen diyaaradaha lagaga dhuuntaa raadeerka yaa soo sheegayo markuu raadeerka soo sheego madfaca dhuuntaa dhulka loo dhigaya shabaqiisiyaa la saaraa marka ma arkayso sanaatuuqdii la riday meel duur oo halkaas kale loo dhigayaa maanta o dhan meeshay garaace baabuurka sidoo kale waa wataa haddii diyaarad la sheegay waa la joojinaa meel lageen horaa laga saaraya marka ninkaas taliyaha ee taktiga keena guriga iska lahaa ninkaasaa le guriga ha ninka magaciisa magacii marka hadduu dhintay mar dhow karoonihii aa dilay magacii cabdiraxmaan maxamuud cali aa la dhahaa koofi weyne cabdiraxmaan jiisna waa la dhahaa ninkii askarta ii soo qoray waay
haye gurigu sidee gacantiisa uga baxay guriga sida uga baxaan kuu sheegi Haye. guriga 5 sano ka bacdi markuu taliyay qayb ahaa waa la bedelay soo ma ya sacuudi carabiya loo bedelay adaata militaar asoo generaal ah sacuudi carabiyu joogay waa laga sii bedelay safiira laga dhigay jarmala la geeyey soo joogaa meesha burburkii ugu dhacay guriga burburkan unbaa laga kala cararay ya maahana markii hore o dhan sigaas ka lahaa waa deganaa gurigana aan kuu sheegay dhagax ma ah siisaba guriga dhagax ma ah meel yaroo jikada ah iyo meel yaro banaanka labadoo qol midka walba waardiyuhu seexdaan iyo wax saas ah oon dhismaha banaanka ka ah yaa dhagax ka ah gurigan kale waa dhis fargaas ah may fahamtay hadda fargaaska ma taqaana adiga fargaaska ma fahmaysaa May maxaad ii weydiisay bacdi Anaa ku weydiinaya. fargaasku waa ciidii shamiindo oo guriga lagu maartay lagu garaacayo lagu garaaco lagu firdhiyo oo la salaaxa shamiindo badan baa lagu daray guriga waa dhistaas maana guri dhagaxa ma ahayn waa kastaanu malay marka guriga baabkiisa waa saas cabdiraxmaan maxamuud cali al dhahaa ninkan marka nin oo xishoonayo inuusan ahayn waxaad ku ogaataan wallaahi hadda been ma sheegayo waagii aaraadheedii markaan magaalada soo galnay dhowr beri ka bacdi yaan subax wadada maray meeshii oo la jaafjaafayo qashinkii iyo kuwii jaafjaafayaan weydiiyey wareer meeshaan yaale aad madoobaa noo dirsaday dheen marka hore un sii gudbay guriga deganaa ugu tagay aada meeshaan yaa ku siiyood ka heshay gabar hooyadii talyaani u saarnaan jiraan ka gatuu yiri aadana wax shaqaynaya ma ahee gurihii daaroodka in la boobo maa noo go-aamiseen dad go-aamiseen noo sheega ana laftay midaan qabsana guri malihi maya ma go-aaminin waay gurigan dhaafaanin nin generaala oo jarmal igu wardambeysay oo cabdiraxmaan maxamuud cali koof weynaan la dhaha faadimo jibriilna waa xaaskiisa ahayd ha xaaskiisi waay ma fahamtay adi yaa iskale anaa og la dhisayaan ogaa guriga xilligaasaa la dhisay aan lagu wareerin iska dhaafaan guriga adaaba sheegaysid waa kana hadda laga fujin lahay cilada marka dhacday ninkii wuxuu noqday baarlamaankii imbagaatiga soo galay wasiir gaashaandhigaa laga soo dhigay dowladda cabdullaahi yuusuf isagana wasiirka cadaaladda laga soo dhigay bal fidnadan feeri wax ka fujiya wasiirka difaaca wasiirka cadaaladda guri isku qabsaday yaa guriga isku qabsaday nag baa laga kari waayey guriga horta islaantaan qaylinaysa aniga guriga saasaan u oga xogaal badanaan ka ahay yaa meesha aan kaaga sheekeeyey waa dareemi kartaa marka waa saas generaale waa mahadsantii aad baad u mudan tahay dadka magaalada baydhabo degan siyaasiyiinta kala duwan ee siyaabo kala duwan uu hanku ugu jiro waxgaradka reer baydhabo maanta magaalada baydhabo way liqliqanaysaa bal wax ku dhe waxbaan ku daraa haye baydhabo dad aan ka naxayn ah yaa yimid haye aadan madoobaa ka mid aho reer baydhabo ma ah haye aadan madoob waa reer xudur hadama waayo haye warkaygama faham haye jaamac waa reer bokoolo reer waajid waayo haye warkaygama fahamtay aad iyo aad eelay deegaanba ma laho eelayu ka tirsan reer buuri waayo haye yaa kuwa kaleo eelaygana isaga darale haye yaa niman dalkan maalintoo usoo dhibaatooday aadamadooba runtii waa usoo dhibaatooday laakiin asaanba damiir lahayn way kastaan u malay haye niman maalintoo dalkan usoo dhibaatooday inta jeer oo nala derderay waa kuu sheegay soo maa waa nimanaan qofna oga dhiman kuna dhaawacmin ninka ay leeyihiin gadu ka yimid wuu ku dhaawacmay halgankii ku dhaawacmay cabdicasiis haa labadan lagooday xabadda isu martay yaa stationka hortiisa meeshaan garabka ka saarnay 40 kilomitiraan geeyey
دور عدلان جين داو مالي وحمالي يا marka waxaan ku soo marnay hadda lagama sheekeyn karo dadka la dardaarano nin odayaa tahay waxgaradka digli intaad dardaaranka gaarin maalmaha nuxnuxda socotay ah in siyaasiyiinta bay ka soo jeeda ee aad gaar ahaan qabiilka Leysaanta la yiraahdo magaalada degan inaad isu soo dhawaanaysaan oo uu muuqdo inuu iskaashi idin dhex maraayo si haddii idinka aad meesha uga baxdeen ayaga ay u hantaan waxbaa ka jira miya wixii jira hadda kaagama sheegay kama sheekeynayo hadday wax jiraanna kama sheekeynayo haddayna jirinna kama sheekeynayo taas waa baabka oo kale dardaaranka aan gudubno marka dardaarankaan u gudbaynaa Aye. sheekada Leysaanta naga dhaafa Aye. meel kale aan u gudubno Aye. dardaarankaan u gudubno reer Baydhabo waxaan kula dardaarmayaa Ah. dadka aan Baydhabo ka naxaynin oy keeneen yaa oy keeneen way soo yareeyeen ha soo badiyeen way yaryihiin ha soo badiyeen ha soo kordhiyeen oo Baydhabo ka naxaynin waa fahamteen taas waa kula dardaarmay haddana inaad sii nabadgashaan sii kala nabadgashaan haddii aad rabtaan xasan sheekh waa idiin dadaalay ninka hadda uu meesha keenay la shaqeeyay jibriil markii qolo uma eexanaay sida aan qabno inuusan qolona u eexanayn midifla ah taasaan aaminsan hadda haddii kuwan kale nin ka mid a la geeyo dhibaatada markiiba waa ballaaran lahayd oo aadamadooba ka mid yahay haddii la geeyo dhibka maalintaasuu kow yahay marka ninkan waxaa laga yaabaa in lagu kala badbaado ayaga waxaan leeyahay oon kula dardaarmaya ninkan la shaqeeya waa ku kala nabadgelaysaan intaasaan leeyahay aad baad umahadsantahay adinkaa mudan intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni geed fadhi oo uu marti noogu ahaa sarreeye gaas mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyihii hore asluubta xildhibaan hore taliyihii qaybta ee gobolka baay wuxuu ahaa jenaraal aadan kaaga mahad celinaynaa barnaamijkan waxaa si toos uga daawanaysaan Cartalk iyo Somali Stream waxaan idiin tabinaya anigoo Cabdinuur Maxamed Axmed iyo Cabdikariin oo dhinacayga fadhiya inta aan barnaamij lamid ah kaga kulmi doono amaana Allah waa mahadsantihiin nabadana asal nugale nabadana asal nugale